السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كلنتو عن marka la soo dhawaado maanta waxaan idin wadaa haddii aad qof rag ah tahay maaragtay shahwada dhanka shahwadan ay dhibaato ay ka hayso aad ku dhibaatoonaysid maaragtay tirinta ama tirada shahwadaada ay yar tahay countiga shahwada ay yar tahay sidoo kale socodka mise motility wax loo yaqaano shahwadan ay ku lagu dhahay inay yar tahay dhanka cunno ahaan marka maxaa lagaaga baahan yahay inaad la tacaashid oo aad maaragtay aad ku kordhin kartid oo aad kor u qaadi kartid maaragtay spamka countiga iyo motility-ga gaar ahaan horta saan ognahay haddii aan u guda galno barnaamijka waxaa waaye waxaa loo yaqaano shahwada sidaba waxay kaa caawinaysaa mise spamka markii la yiraahdo waxay kaa caawinaysaa inay maaragtay gabadhii xaaskii kula joogtay inay uur qaadistii u fududaato maadaama waxaa ugu muhiimsan oo maaragtay ukuntii bacriminaya ayaa shahwada mise spamka marka spamkani haddii uu daciif ama dhibaato ay ka jirto shahwadani oo shahwada dhanka ragga haddii daciif ay ka jirto waxa aad dareemaysaa mise aad isku arkaysaa gaar ahaan dhanka shahwada oo maaragtay spam countiga hadduu dhibaato ka jiro waxaad isku arkaysaa maaragtay in aad wax uuray gabadhii ay ku qaadi karin sidoo kale motility-ga hadduu shahwada motility-ga wax loo yaqaan baa jirto socodka markay gudaha aad si ay ka imaado shahwadii maaragtay gudihiina ay ku jirto maxaa marka motility ahaan maxaa socodsiinaya shahwadii oo maaragtay destination-keeda meesha laga rabo gaarsiinaya waxaa waaye motility-ga marka haddii dhibaato ay ka jirto ayadana 40% ay kor ay ka tahay spam count-gan uu less than 15 uu yahay dhibaato baad isku arkaysaa marka muhiimadda waxaa waaye spam count-ga waa inuu 15 milyan uu kor u ka yahay maaragtay less than 40% uu yahay maaragtay motility-ga spamka marka waxyaalaha lagaga baahan yahay waxaa waaye inaad vitaminada aad badsatid vitaminada qaarkood ayaad isticmaali kartaa maaragtay vitamin B-ga vitamin C-ga vitamin D-ga vitamin E-ga vitamin B12-ka iyo vitamin C-gaba laakiin gaar ahaan vitaminadani iyo waxyaalahani intaad ka heli kartaa oo cunto ahaan ah maaragtay cunooyinka aad ka heli kartid waa maxay cunooyinka aad ka heli kartid kow waxaa waaye cunada loo yaqaano whole grains-ka mise cunooyinka oo maaragtay magacoodii umbrella-ga mise hoos imaanaya whole grains wax loo yaqaano cunooyinkani whole grains-ka maxaa kamid ah marka sida maaragtay oats-ka waxaa waaye mushaarida sida kale brown rice wax loo yaqaano ayagana waad ka helaysaa maaragtay waxay kor u qaadayaan brown rice wuxuu kor u qaadayaa mise oats-ka wuxuu ka caawinayaa maaragtay in ay shahwadaadii ay ku darsanto maaragtay sidoo kale motility-geena ay ku darsanto sidoo kale cuntada labaad oo inaad badsatid loo baahan yahay waxaa waaye looska faa'iido badan baa ku jirta loosku wuu kala nooc badan yahay maaragtay sida walnuts-ka almonds-ka maaragtay miraha sida mirooyinka qaarkood oo chia seeds-ka loo yaqaano ayagana way ku caawinayaan flax seeds-ka sunflower seeds-ka wax loo yaqaano ama saliidda sunflower-ga laga sameeyey waxaan iyo idil way ku caawinayaan arrinta kale cunada kale oo ku caawin karto waxaa waaye dark chocolate oo maaragtay oo midowga ah oo dark chocolate-ka loo yaqaano waxaa laga helaa maaragtay antioxidants badan baa ku jiro maxaa ku jiro maaragtay minerals badan baa ku jirto macdan badan baa ku jirto oo kaa caawinaysa inay maaragtay dhanka spamkaaga shahwadaada haddii aad qof rag ah tahay kor u qaadayso sidoo kalena maaragtay kaa caawinaysa motility-gana sidoo kale kaa caawinaysa fruitska waa arrin kale oo inaad ku dadaashid loo baahan yahay inaad mar walba isticmaashid loo baahan yahay fruitska gaar ahaan strawberries-ka papaya maaragtay kiwiga fruitka loo yaqaano iyo citrus fruitka maaragtay waxaa laga helaa vitamin C waxyaalaha kale inaad badsatid loo baahan yahay waxaa cagaarka kala duwan cagaarka sidiisba maaragtay folate baa ku jiro folate-ka waxyaalo badan buu kaa caawinayaa male fertility-gana uu fiican yahay sidoo kale antioxidants badan baa laga helaa cagaarka oo kala duwan cunooyinka kale aad badsan kartid waxaa waaye wax loo yaqaano dairy product-ga waxaa kamid ah yogurt-ka maaragtay waxaa kale oo cheese-ka inaad badsatid dairy product-ga oo hoos imaanaya ayaa kamid ah cheese-ka maaragtay waxa loo yaqaano yogurt-ka waad maqashay iyo caanaha waxaan idil waxaa laga helaa zinkiga macdanta zinkiga ayaa ku badan iyo calcium-ka ayaa ku badan ayagana waxay kaa caawinayaan vitaminadani inay maaragtay shahwadaadii kor u qaadaan motility-gana kor u qaadaan ugu dambeyntii olive oil-ka waa inaad isticmaashid aad badsatid
maadaama waxay kaa caawinaysaa iyadana maaragtay in maaragtay waxaa ku jiro iyadana macdan kala duwan baa ku jirto oo kaa caawinaysid gaar ahaan qofka raggana u fiican olive oilka saliidda ku karso cuntada ku karso cafwan maaragtay sida adigana waad u isticmaali kartaa laakiin gaar ahaan markaad cuntada ku karisid faa'iidooyin badan baa ku jiro insha allah gabagabadii gunaanadka barnaamijka baad soo gaarnay fadlan meel walba joogtid channelka kiilowina subscribe like and share-ka haddana waxaan idin rajaynayaa sidaas iyo nabadgelyo